halkani waa BBC London Afrikada bari saacadu waa 2 duhurnimo oo buura ah. kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaartana dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba waa axad bisha Febraayo waa 11 sanadka 2018 qodobada aanu barnaamijka idinku haynana waxa kamida gudida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Britain oo dawladda Ingiriiska ugu baaqday inay madmadowga ka saarto waxay ka aaminsan tahay Maleeshiyada Kurdiyiinta ah ee Turkiga la dagaalamaysa go'aankii shirka amniga lagaga wada xaajoonayay ee ku qabsoomay magaalada Muqdisho oo ay go'aamo ka soo baxeen wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho ayaa goordhow warbixintaasi ina sii doona Nigeria waxa ay xaqiijisay in la sii daayay dad ay Maleeshiyada Boko Haram haysatay waxa kale oo aad maqli doontaan dhiikarku waxa weeyaan cudur dilaa ah waana cudur dhib yar inaynu daweyn karayno la dawadiisu way adagtahay laakiin in laga hortagiisa ayaa fiican xanuunka dhiikarka oo ku soo badanaya dumarka uurka leh magaalada Hargeysa wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo oo isku soo dubariday Axmed Cabdi Nuur aniga oo Cabdi Xaafid Caawil Ismaaciil aan idin la socodsiinaya hadii Ilaahay idmo halkani waa London marka horese waxaynu ku bilaabaynaa wararka BBC-da Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa inoo hayay Cabdirasaaq mahadsanid Cabdi Xaafid ra'iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Lee Na-kyun ayaa waxa uu muujiyay hubaal inay tahay shuruudo inay iman doonaan ka hor intaan madaxweynaha dalku la kulmin madaxweynaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un oo martiqaad fidiyay martiqaadkaasi waxa keentay gabadha ay walaalayihiin madaxweynaha waqooyiga Kuuriya oo u keentay madaxweynaha koonfurta Moon Jae-in maalintii Sabtidii warbaahinta waqooyiga Kuuriya ayaa waxay ku tilmaantay wadahadalladaas inay ahaayeen qaar aan waxba la kala qarsan oo saaxiibtinimo ah hase yeeshee warka martiqaadka in shirweyn la isugu yimaado Pyongyang may ka hadal dhinaca koonfureed ee waddankaasi Kuuriya dawladda ka dhisan ee Mareykanka xulafada yihiin ayaa Mareykanku waxa la sheegay in laga yaabo inaanu soo dhaweyn labada hogaamiye ee Kuuriyaanku in ay isu yimaadaan ilaa inta waqooyigu aqbalaya bay dhahdeen in laga wada hadlo arrimaha dhinaca nuclearka dalka Myanmar ayaa waxa ay sheegeen tallaabo in laga qaadayo 16 qof oo ay ku jiraan askar iyo rayd oo la sheegay lugin ay ku lahaayeen in la dilay 10 qof oo muslimiinta Rohingya dadkaasi la laayay ee Rohingya waxa la sheegay goob in laga qaatay gobolka lagu magacaabo Rakhine bishii September ee soo dhaaftay ciidamada Burma ayaa la sheegay askarta qaarkood inay ka qayb qaateen beledka dawladdu dilka dadkaasi Myanmar oo booqasho uu ku tagay xogayaha arrimaha dibadda ee waddankan Britain Boris Johnson ayaa waxa uu u sheegay Aung San Suu Kyi in loo baahan yahay si madax bannaaniya oo buuxda in loo baaro wixii ka dhacay Rakhine ilaa 6 qof ayaa ku dhintay rasaas la isku weydaarsaday oo dhex martay ciidamada waddanka India iyo ciidamo Maleeshiya markii ay soo weerareen kaam ku yaala meel aan ka fogeyn caasimadda Jammu dhulka la isku hayo ee Kashmir ciidamada ammaanka ayaa waxa ay sheegeen inaan la ogeyn tirada halkaasi ku dhimatay dhammaanteed inkasta oo weerarku ka dhacay kaam aad u ballaaran oo ciidamadu ay degan yihiin waxaana la sheegay in imika madaxa ay iskula jiraan ciidamada halkaa degan iyo kooxahaasi xooga ku soo galay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka India ayaa waxa ay sheegtay boqolaal askar dheeraada iyo police in halkaa lagula cararay poliisku waxa ay sheegeen 3 ciidamadii inay dhinteen iyo qof rayda waxa kale oo ay sheegeen 2 kamid ah dadkii weerarka soo qaaday in halkaa lagu dilay ciidamada waddanka Masar ayaa waxa ay sheegeen inay direen 16 mitidiinta islaamiyiinta ah halgankii weynaa ama weeraradii ay ku qaadeen tallaabada ay kaga hortagayaan argagixisada ee bilaabantay bishii Jimcihii gaar ahaan deegaanka Sinai hadal ka soo baxay militariga ayaa waxa ay sheegayeen 10 meelood in la burburiyay oo ay ku jiraan meelo hubka lagu kaydiyo iyo gawaadhi waxa kale oo ay sheegeen inay soo xireen ilaa 30 kooxaha islaamiyiinta ah
madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi ayaa waxa uu sheegay ciidamadiisa in loogu talagalay inay jebiyaan kuwa mitidiinta islaamiyiinta ee ka dagaalamaya degaanada oo uu qabtay 3 bilood oo keliya inay arrintaa ku dhammeeyaan. taas waxa ay ka dambeysay weerarkii lagu soo qaaday masaajid bishii Novembartiina soo dhaaftay oo in ka badan 300 oo qof ay ku dhinteen. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa waxa uu sheegay dalkiisu inuu ku adkaysanayo inuu meel mariyo heshiiskii lagu gaadhay barnaamijka dhinaca nukleerka. waxa uu yiri taas waa haddii Mareykanka iyo quwadaha kale ee adduunku ay taayeelaan. khudbad uu ka jeediyey xuska kacaankii waddankaasi Iiraan ee islaamiga ahaa, Ruuxaani waxa uu sheegay Mareykanku inay isku dayeen heshiiskii la gaaray inay baabiyaan laakiin ay ku guulaysan waayeen. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa aad u canaantay heshiiskii nukleerka ee lala galay waddankaasi Iiraan, waxaanu caddeeyey Mareykanku in ay joojin doonaan taa in ay aqbalaan ilaa iyo inta isbeddel la samaynayo. hudheelka weyn ee Ritz-Carlton ee ku yaala waddanka Sacuudi Arabiya magaalada Riyaad ayaa dib loo furay 3 bilood kadib markii uu noqday xabsi. hudheelkaas oo la sheegay inuu yahay kuwa ugu waaweyn adduunka, laguna hayay amiiro iyo dad ganacsato ah. tallaabada boqortooyada ay kaga hortegayso dhinaca musuqmaasuqa. dadka fara badan ayaa la sheegay in la sii daayay toddobaadadii ina soo dhaafay oo uu ka mid ahaa ninka bilyaneerka ah Prince Waleed Al-Talal oo la fahantiisu leh hudheelada ugu waaweyn ee ugu caansan adduunka. dowladda waddanka Sacuudi Arabiya waxa ay sheegtay in ka badan 160 bilyan inay ka soo xiraysay tallaabadan ay qaaday dhinaca ka hortagga musuqmaasuqa, tallaabo aan hore loo arag. aad ayuu u mahadsan yahay cabdirasaaq xaaji maxamed siraad oo inala socodsiinayay wararka BBC da barta Facebook ayaad sidoo kale dhegaystayaal toos noogala socotaan. iminkana u diyaar garooba qaybaha idaacadda inooga hadhay. halkani waa London. goordhow waxaa inoo soo socda wararka Soomaalida, balse guddi ka tirsan golaha baarlamaanka Ingiriiska ayaa ka biyadiiday waxa ay ugu yeedheen nidaam madmadow ku jiro oo la xidhiidha maleeshiyada kurdiyiinta ah ee waqooyiga Suuriya kula dagaalamaysa milatariga Turkiga. guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Britain ayaa ku baaqay inay dowladda Ingiriisku caddayso halka ay ka taagan tahay maleeshiyaadka YPG ay xidhiidh dhow inay la leeyihiin iyo in kale kooxaha weerarada ka fuliya Turkiga gudihiisa oo ay Ingiriiska iyo Mareykankuba u aqoonsan yihiin koox argagixisa. kurdiyiinta waxa ay ka heshay taageero militari Mareykanka iyo Ingiriiska dagaalka ay kula jiraan kooxda la baxday dowladda Islaamka. wariyahayaga arrimaha diblomaasiyadda ayaa eegaya warbixinta waxaana inoo soo jeedinaya Axmed Cabdinuur. weerarka Turkigu ku qaaday kooxda YPG waxay iska horkeenaysaa xulafo muhiim u ah gaashaanbuurta neeto iyo dagaalamayaasha kurdiyiinta oo kaalin weyn ka soo qaatay dagaalkii lagu jebiyey kooxda isku magacowday dowladda Islaamka. Britain waxay sheegtay in Turkigu xaq u leeyahay inuu xuduudihiisa difaacdo, laakiin xubno ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamanka waxay dowladda ku eedeeyeen inay arrinta dhexdhexaad ka noqotay iyadoo dagaalka lagula jiro kooxda Daacish uu soo dhammaanayo. mudanayaasha baarlamanku waxay weydiiyeen taageerada kale ee Britain siin karayso kooxda YPG iyo garabkeeda siyaasadda. mustaqbal ma ku leeyihiin habka nabadda Suuriya? maxayse wasaaradda arrimaha dibadda u malaynaysaa inuu yahay xiriirka la sheegay inuu ka dhexeeyo kooxda YPG iyo kooxda mintidiinta Kurdiga ah ee waddanka Turkiga ee loo yaqaan PKK? wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain waxay sheegtay in xaaladda waqooyiga Suuriya ay tahay mid aad u dhib badan, ayna ka fiirsanayso waxyaabaha la soo jeediyey in laga qabto. laakiin dowladdu waxay qiimaynaysaa xidhiirka dhow ee kala dhexeeya Turkiga oo ah arrin wax ka taraysa in sharaxaad laga bixiyo macnaha ay yeelan karto marka laga hadlayo arrinta kurdiyiinta. axmed cabdinuur aad ayuu u mahadsan yahay. magaalada muqdisho waxaa xalay saqdi dhexe lagu soo gabagabeeyey shirkii madaxda Soomaalida ee looga hadlayey arrimaha amniga, siyaasadda iyo qaybsiga khayraadka oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay socday. gabagabadii shirka waxaa laga soo saaray warmartiyeed ka hadlaya waxyaabihii madaxda Soomaalidu ay ku heshiisay. wariyaha BBC da ee magaalada muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaa hadda khadka Lucy Life Tours ugu jira. Ibraahim, aad ayaad u mahadsan tahay, balna sii faahfaahinta natiijada shirka.
cabdi xaafid go'aanada la xiriira dhinaca siyaasadda gaar ahaan doorashooyinka markii ay madaxdu faaqiday waxay go'aan ku gaartay sida ay lagama maarmaanka u tahay in 2020 la qabto doorasho qof iyo codkii ah si taa loo sameeyo waxaa awood buuxda la yiri waa in la siiyaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka si uu soo dhammaystiro howlaha la xiriira arrintaasi isla markaana shirka kan xiga oo dhici doona 8 bisha Maars sanadkan kana qabsoomi doona magaalada Baydhabo inay keenaan nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta si sharciyada loogu baahan yahay loo meel mariyo sidoo kale wasaaradda dastuurka waxa iyana la faray in ugu dambeyn 2018 aakhirkiisa ay soo gabagabayso dib u eegista dastuurka si marka dambe afti dadweyne loogu qaado ugana baxo dastuurka hadda dowladdu ku dhaqantay ee ku meel gaarka ah sidoo kale waxaa laga hadlay arrimaha wada tashiga khayraadka la xiriira iyo qaybsigiisa isagana waxaa la sheegay in go'aan laga gaari doono 8 bisha Maarso marka Baydhabo ay ku shiraan madaxda shirku sidoo kale intuu socday waxaa laga hadlay arrimaha amniga oo ah kuwan ugu muhiimsan oo iyaga la'aantood aan waxyaabaha oo dhan qabsoomi karin madaxdu waxay isku waafaqday in booliska dhismihiisa la dardargeliyo iyadoo dowlad goboleedyada laga caawinayo arrimaha ku saabsan booliska oo ay qayb ka yihiin ciidamada daraawiishta dowladda federaalku waxay ka caawinaysaa ciidamada booliska dowlad goboleedyada oo ay ku jiraan daraawiishta hubka sanada agabka ciidan raashinka dawada gunnada tababarka iyo tayeynta kuwaas oo kala qayb qaadanaya ciidanka kale ee militariga Soomaaliya ee dagaalka ka dhanka ah kooxaha dowladda ka soo horjeeda sidoo kale waxaa laga hadlay arrimaha ku saabsan dhismaha ciidanka qaranka agaasima ku-xigeenka warfaafinta ee madaxtooyada Cabdifataax Awaare oo xalay saqdii dhexe wariyaasha la hadlayay ayaa kor istaagay sida loogu baahan yahay dhismaha ciidanka militariga in la magacaabo lana hawlgeliyo guddiga isku dhafka ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guddiga farsamada ee amniga qaranka oo ka kooban heer federaal iyo mid gobol waxaa la go'aamiyey inay kulmaan 3 asbuucba hal mar waxayna xog dhammaystiran la wadaagayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxdooda in xafiiska amniga qaranka qorsheynayo una helo miisaaniyad lagu hawlgeliyo xafiisyada amniga ee dowlad goboleedyada in la daadajiyo dhammaystirka ciidamada danab sida ku xusan qaab dhismeedka amniga qaranka ciidamada danab waa in la isku dhafaa si heer qaran ah tababarka ka hor waa hagaageen Ibrahim marka laga soo tago madaxda shirka ka qayb galaysa sidee loo arkay shirka balse inta aan horta su'aasha iga jawaabin madaxda Soomaalidu waxay heshiis ka gaadhay qaabka lagu bixinayo ruqsadaha kalluumaysiga ee wadanka heshiiskaas isaga maxaa laftiisa noogu sheegi kartaa cabdi xaafid sidaad ka warhayso dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkuba si gooni ayay u bixiyaan ruqsadaha ku saabsan ee kalluumaysiga la siiyo oo ogta dalku burbur badan buu ku jiray ee dhowr iyo 2 sano ugu dambeeyay marka hogaamiyaasha Soomaalidu waxay si gaar ah uga hadleen sidii xal degdeg ah looga gaari lahaa cidda bixinaysa shatiyada ama ruqsadaha hay'adaha kalluumaysiga ku xigeenka agaasimaha madaxtooyada ee warfaafinta Cabdifataax Awaare markii uu ka hadlayay qodobada lagu heshiiyay qaybsi bixinta shatiyada waxa uu yiri bixinta ruqsadaha kalluumaysiga wixii ka sareeya 24 nautical miles ee aaga dhaqaalaha ee EEZ waxa u xilsaaran dawladda federaalka ah oo ay mas'uul uga tahay wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda bixinta ruqsadaha wixii ku eg 24 nautical miles waxa u xilsaaran dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee federaalka waxay wakiil ku yeelanaysaa caasimadda dowlad goboleedyada si ay u fududeeyaan soo gudbinta macluumaadka la xiriira bixinta ruqsadaha kalluumaysiga iyadoo la tixgelinayo habraacyada u degsan ruqsad bixinta waafaqsanna sharciga kalluumaysiga Soomaaliya qiimaha curaarta ee ruqsad bixinta kalluumaysiga waxaa lagu salaynayaa nooca kalluunka iyo muddada ruqsadda oo uu codsaduhu soo weydiistay iyadoo la tixgelinayo tartanka sayladaha ee qiimaha bixinta ruqsadaha habraaca qiimaha ruqsad bixinta iyo macluumaadka codsiga kalluumaysiga waxaa loo raacayaa heerka caalamiga ah ee codsiga ruqsadaha kalluumaysiga waa tahay dhegeystayaal haddii khadku idinka go'ay raalli ka ahaada Ibrahim weli khadka ayuu ku jiraa Ibrahim marka laga yimaado madaxda shirka ka soo ka qayb galaysa sidee loo arkay guud ahaan shirkan
cabdixaafid shirka waxaad moodaa in dadweynuhu aad u soo dhoweeyeen markaad egto in madaxdii Soomaalida oo kaliya intay meel fariistaan ay wada hadlaan 6 bisha ilaa 10 bisha ayay wada hadlayeen in dadweynuhu ay si wanaagsan madaxda Soomaalida oo kaligooda intay meel fariistaan heshiisna ka gaaraan sidoo kale dhinacyada mucaaradka ayaa soo dhoweeyay shirkan amniga qaranka oo waliba Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo BBC-da la soo xiriiray wuxuu aad u bogaadiyay heshiiska gaareen madaxda Soomaalida iyo shirkaas muddada 6 ilaa 10 u dhaxaysay Muqdisho ka socday waa tahay Ibraahim aad ayaad u mahadsan tahay wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed aadan oo khadka toos ugu jira ayuu kaasi ahaa qaar ka mid ah asxaabteena Facebook ayaa ra'yigooda ka soo dhiibatay Liibaan Maxamed Sirwac Muqdisho ayuu joogaa shirka amniga qaranka ee dhawaantan lagu soo gabagabeeyay Muqdisho runtii waxba ma soo kordhinayo ayuu yiri waaye hal shir ama laba shir oo la qabto amniga Soomaaliya wax loogama qaban karo halka uu Samatar waa Maxamed Samatar oo jooga magaalada Hargeysa uu leeyahay shirka uga socday ee soo gabagaboobay maamul goboleedyada dowladda dhexe ee Soomaaliya ee imika dhamaaday waan soo dhaweynayaa gaar ahaan buu yiri qodobka qaybsiga khayraadka badaha waxa si isweydiin leh maxaa la hayaa buu yiri wali wax u diyaar ah xaggaas Soomaalida ma jirto laakiin guud ahaan shirkaasi waan soo dhaweynayaa ayuu yiri qaar ka mid ah asxaabta Facebook ayay kuwaasi ahaayeen وهجاج وررك لا يعني وصو صعدة مجالده هرجيسنا دمر كأور كلا يا واحد كسو بدنا يحنون كدي كركا أو مررك قار كود أي دمر كو أولنتان بس الدولة النيجيريا يا حقيقي شيء السود يسد حيث من قف ويقعن تكو هيين ماليزيا دا بقى حرم طبعا كم إذا حدث كان أفضل كله هيستي وحايا هاين دمر أي قرابيهين بوليس وحنا لقى فاشي يجو كقيب قليا كان عسكرية أولنتان بشي تون صدق قفنا وحاي بريال كهاين كمعدم ما إدوغوري waxaana iyagana la kaxaystay iyagoo waxbarasho dhinaca kaynta ku maqan bishii ku xigtay ee 7 ee July Stephanie Hegarty ayaa warbixinta noo soo dirtay waxaana inoo soo jeedinaya Ciise Xaaji Cabdulla dowladda Nigeria ayaa sheegtay in kooxda mintidka ee Boko Haram ay sii daayeen 13 qof ay afduubteen bishii July dadka la sii daayay waxaa ka mid ah 10 habeen ah oo la afduubtay xilli weer lagu qaaday kolonyo gabaare booliis ah waxaa sidoo kale ka mid ah 3 macalin oo laga afduubtay magaalada Maiduguri xilli ay ku jireen safar baaritaano shidaal ah bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Muhammadu Buhari ayaa lagu sheegay in dadkan la sii daayay kadib wadaxaajood ay garwadeen ka ahayd hay'adda caalamiga ee laanqeyrta cas bilooyinkii ugu dambeeyay boqolaal qof ayaa la sii daayay ama laga soo badbaadiyay gacanta Boko Haram ciidamada militariga Nigeria ayaa weerar culus ku haya ururka waxayna la wareegeen xarumo muhiim ah oo ku yaala keynta Sambisa balse sii deynta 13 qof ayaa loo arkaa guul muhiim ah sanad ka hor ay dowladda Nigeria ku dhawaaqday in farsamo ahaan laga guuleystay kooxda Boko Haram Ciise Xaaji Cabdulla ayuu mahadsantahay yahay warbixintii Boko Haram iyo dadkii ay soo deysay ayuu inoo dulmarayay barnaamijkii duhurnimo ayaa dhageystayaal toos ula socotaan barta Facebookana toos ayaad noogala socotaan madaxda qaybta dhalmada iyo daaweynta hooyada iyo carruurta ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. Faaduma Xaaji Iimaan Faaduma Afrika ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in beryahan dambe uu aad u soo kordhayo xanuunka dhiigkarka ee dumarka uur kale ku dhaca kaasoo ay sheegtay inuu keeno dhimasho shaqaalaha caafimaadka oo wada wacyigelinta caafimaadka asaasiga la xidhiidha ayaa Dr. Faaduma Afrika waxay ka warantay calaamada lagu garto marka xanuunka dhiigkarku hayo hooyada uur kale sida lagu daaweyn karo iyo waliba talooyin ay u soo jeedisay guud ahaan qoysaska waxaana u warantay wariyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa Axmed Saciid Cige horta Axmed oo dhiigkarku waxa weeyaan cudur dilaa ah waana cudur dhib yar inaynu daweyn karayno la dawadiisu way adagtahay laakiin in laga hortagiisa ayaa fiican waxa cudurkan wuxuu ku dhacaa 6 bilood marka laga bilaabo ilaa 9 bilood dumarku ay gelayaan ayuu uurka leeyihiin ayuu cudurkaasi ku dhacaa waxaanu caan ku yahay gabadhu in dhiigeegu uu kaco oo uu ka bato 149 inay maxaa hayday kaadideeda waxa la yiraahdo protein-to ay soo raacdo in maxaa hayday dadka qaar beerku xanuuno in dadka qaar kaliyo xanuunaan iyo barar inay bararto waxyaalaha lagu garto weeyaan bararka iyo maxaa hayday iyo dhiigo kaca dhiigu markuu kacana waxay gabadha yeelanaysaa madax xanuun fara badan waxay yeelanaysaa indhaha ayaa waxa hororordaya maxaa hayday dhimbiilo waxyaalo fara badan caloosha xanuunaysa wax fara badan baa ku dhacaya marka waxa weeyaan waxa Axmedow muhiima
inay dumarku special iyo ragguba ay yaqaanaan cudurkaas dilaaga ah. marka maxaa keena sababta maxaa keena qaar kuma dhaco qaarna uu ku dhacaa imakadan cisbitaalka intii yareedeen joognay khatarada kale waxa inoo sheegaysay in ilaa 5 dumar la keeno imaka inagan sariiraha kugu wareysanaya aad dhex wareegayso cisbitaalka ee ay 5 foolanaya oo dumarkiiba ay cudurka dhikarkii dhigoodi kacsan yahay. horta cudurka waxa keena uurka keena waayo gabadhu hadaan uur lahayn kuma dhaco waxyaalaha u sababta ana badideeda lama garan laakiin wax badan baa ayaa keena marka waxa badan ee keena waxa kamida gabadhu haday warwar badan yeelato stresska kamida cuntada kamida environment-ka aynu ku noolahay haduu yahay environment kulul oo humidity ku badan tahay iyadana uu ku dhacaa iyo waxa jira waxyaalo heredity ah oo hadii hooyadu ay lahaan jirtay iyaduna waa yeelanaysaa marka wali wixii keenay lama garanayo laakiin waxyaalahaas ayaa loo maleynayaa factor risk factor. Doctorisa in Faadumo miyay kala duwan yihiin dhikarkan ku dhaca dadka caadiga qofka caadiga ku dhacay ragga ku dhacay cid walba ku dhaca in istirooga keena marka dambe iyo dhikarkan la leeyahay gabadhii dhiigii waa yani dhikar bay yeelatay oo uur awgii miyay kala duwan yihiin siday u dhibaataynayaan waa isku mid oo labadaba dhiigii baa kacsan labadaas laakiin kan uurkuunbu ku dhaca uurka marka laga tagana uu baaba marka taas waxay ku tusaysaa waxyaalaha hormoneska la soo daynaya markay gabadhu uurka leedahay inay ugu wacan yihiin inay yeelato dhiikarka hadii ay marka maxaa hayday kan kale laakiin waxa waa mid chronic ama mid joogaya oo kaliyaha ka imanaya ama beerka ka imaama meel kale ka imaama maxaa dawaa marka maxaa kula talisaan maxaa lagu talinayaa kula talin lahayd dhakhtar ahaan in dumarka foosha gaar ahaan kuwa miyiga way ku dhintaan inta loo soo sido cisbitaalka iyada ka intaas qof isku dhimatay la leeyahay waxa ugu faraha badan waxay horta inuu qofku yaqaana gabadha maxaa ku dhici kara markay uurka maxay yihiin waxyaalaha ku dhacay dhibta keena dhibashada keena maxay yihiin way horta gabadhu taqaano wanay gabadhu taqaano waxyaalaha inay kamid yahay dhiikarku dhiig la'aantu infections waxa soo dhan waxa loo baahay marka gabadhu haday isku aragto madax xanuun fara badan ama haday isku aragto barar inay markaaba tagto meelaha maxaa hayday sida MCH-yada ama dhakhtarada inay u tagto ayaa fiican si loo daweeyo hadii ilmihii hore uu cudurkaasi hore ugu dhacayna waa inay markay uur yeelataba waa inay MCH-ka iyo dhakhaatiirta la xidhiidho si loo sameeyo ka hortaga waxa kamida waxaan u bilownaa aspirin-keenan caadiga ah ayaan u bilownaa marka ay gabadhu 3 bilood meelaha gaadho dabeetana waanu la soconaa marka hadaanu aragnay kaadideedii protein soo raacayso 15 kiilo bay tibaadaa dabeetana waxaan u qornaa dawooyinkii dhiikarka ka celinayay waanu la soconaa ilmahaanu la soconaa iyadaanu la soconaa aad maasantay hadalkaasina waa Dr. Faadumo Xaashi Iimaan waxay u warmasay wariyaha BBC magaalada Hargeysa Axmed Saciid dhiga wararka ciyaarahana Huddersfield iyo Bournemouth waxay wada ciyaaraan 12 duhurnimo halka Newcastle iyo Manchester United labada iyo rubuc ay waqtiga Ingiriiska wada ciyaarayaan Southampton iyo Liverpool afartii barka waqtiga Britain ay ciyaarayaan imikana baafinta maanta waxaa si wada jir ah stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Cabdiqaadir Yuusuf Cali iyo Samiira Cabdullaahi Jaamac Samiira mahadsanid Cabdiqaadir baafinta ugu horeysana maanta waxa ay naga soo gaartay Xaawo Cabdi Cusmaan oo joogta xerada qaxootiga ee Dhagaxley waxa ay baafinaysaa dadka kale ah Muslima Cabdi Cusmaan iyo Ifraax Cabdi Cusmaan oo markii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Afmadow sanadii 1994 hadaba hadii ay namaqlayaan Muslimo Cabdi Cusmaan iyo Ifraax Cabdi Cusmaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hal la gaarsiyo Xaawo Cabdi Cusmaan iyadoo wixii war loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Dhagaxley isaaq mahad cabdille oo jooga xerada qaxootiga Dhagaxleyna waxa uu baafinayaa Yuusuf mahad cabdille waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Koonfur Afrika sanadii 1995 hadaba hadii uu maqlayo Yuusuf mahad cabdille ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo isaaq mahad cabdille iyadoo wixii war loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga Dhagaxley cali cabdulle mursal oo jooga xerada qaxootiga ee Ifo waxa uu baafinayaa dadka kale ah Ibraahim cali cabdulle Cabdiqaadir cadde muqtaar cadde muqtaar iyo Cabdiraxmaan cadde muqtaar oo markii ugu wardambeysay ku sugnaa magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania sanadii 2008 hadaba hadii ay maqlayaan dadkaasi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hal la gaarsiyo cali cabdulle mursal iyadoo wixii war loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Ifo ama telefoonka nambarkiisu yahay 2542 Samatar Ibraahim Saciid oo jooga xerada qaxootiga Dhagaxleyna waxa uu baafinayaa Xaawo
ibraahim saciid waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada kismaayo sanadii 1994. haddaba haddii ayna maqlayso xaawo ibraahim saciid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo samatar ibraahim saciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee dhagaxle. maxamed yarow maxamed daayow oo jooga xerada qaxootiga ee xagardheera waxa uu baafinayaa cali maxamed daayow oo markii ugu wardambeysay ku sugnaa somalilan sanadii 1994. haddaba haddii uuna maqlaya cali maxamed daayow amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo maxamed yarow maxamed daayow iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xagardheera. xaawo aadan axmed oo joogta xerada qaxootiga dhagaxleyna waxa ay baafinaysaa cali xasan cabdi waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada kismaayo sanadii 1992. haddaba haddii uuna maqlayo cali xasan cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xaawo aadan axmed iyadoo wixii war ah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee dhagaxley. cusmaan xuseen cusmaan oo jooga xerada qaxootiga ee xagardheera waxa uu baafinayaa faadumo cabdinuur buraale oo markii ugu wardambeysay ku sugnayd dalka sacuudiga sanadii 1993. haddaba haddii ayna maqlayso faadumo cabdinuur buraale amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo cusmaan xuseen cusmaan iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee xagardheera. cumar cabdi axmed oo jooga xerada qaxootiga ee dhagaxleyna waxa uu baafinayaa aamine cabdi axmed waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan afmadow soomaaliya sanadii 1992. haddaba haddii ayna maqlayso aamine cabdi axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo cumar cabdi axmed iyadoo wixii war ah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee dhagaxley. cadow dhuubow mursal oo jooga xerada qaxootiga ee xagardheera waxa uu baafinayaa caasho maxamed ismaaciil oo markii ugu wardambeysay ku sugnayd somalilan 1993. haddaba haddii ayna maqlayso caasho maxamed ismaaciil amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo cadow dhuubow mursal iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee xagardheer. cabdulaahi cali axmed oo jooga qaxootiga dhagaxleyna waxa uu baafinayaa yuusuf cali axmed waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 1994. haddaba haddii uuna maqlayo yuusuf cali axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cabdulaahi cali axmed iyadoo wixii war ah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee dhagaxley. xakiimo sheekh cabdi oo joogta xerada qaxootiga ee xagardheera waxa ay baafinaysaa nuur maxamed xuseen oo markii ugu wardambeysay ku sugnaa soomaaliya 1995. haddaba haddii uuna maqlayo nuur maxamed xuseen amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xakiimo sheekh cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee xagardheera ama telefoonka nambarkiisu yahay 25474549466. axmed maxamed siciid oo jooga dalka yemanna waxa uu baafinayaa maxamed cumar aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada amsterdam ee dalka holland sanadii 2008. haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cumar aadan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo axmed maxamed saciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka yemen. cabdiqaadir maxamuud walaal oo jooga xerada qaxootiga ee xagardheerana waxa uu baafinayaa nuurta cali cabdalla oo markii ugu wardambeysay ku sugnayd xerada qaxootiga ee kaakuma sanadii 2009. haddaba haddii ayna maqlayso nuurta cali cabdalla amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo cabdiqaadir maxamuud walaal iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee xagardheera ama telefoonka lambarkiisu yahay 254706666. istaahil maxamuud cabsiye oo joogta dalka yemanna waxay baafinaysaa maxamuud cabdi cabsiye iyo siraad xuseen yunis waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada hargeysa sanadii 2004. haddaba haddii ayna maqlayaan maxamuud iyo siraad amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo istaahil maxamuud cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka yemen. cabdinuur cumar haashim oo jooga xerada qaxootiga ee xagardheerana waxa uu baafinayaa maxamed cumar haashim oo markii ugu wardambeysay ku sugnaa dalka kanada sanadii 1994. haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cumar haashim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cabdinuur cumar haashim iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee xagardheera amaba telefoonka nambarkiisu yahay 25474177229. saalax maxamed saalax oo jooga dalka yemanna waxa uu baafinayaa axmed maxamuud xamuudi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada jidda ee dalka sacuudiga sanadii 2013. haddaba haddii uuna maqlayo axmed maxamuud xamuudi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo saalax maxamed saalax
iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka yemen. caliyow isaaq garweyne oo jooga xerada qaxootiga ee xagardheerana waxa uu baafinayaa macalin cabdiraxmaan caliyow isaaq oo markii ugu wardambeysay ku sugnaa soomaaliya sanadii 2015. haddaba haddii uuna maqlaya macalin cabdiraxmaan caliyow isaaq amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo caliyow isaaq garweyne iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee xagardheera amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2542269326. najma axmed maxamed oo joogta dalka yemenna waxa ay baafinaysaa axmed maxamed xasan. waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada galkacyo sanadii 2005. haddaba haddii uuna maqlayo axmed maxamed xasan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo najma axmed maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka yemen. waa hagaaga qodobkaasi baafinta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii waa inoo yeeshanta galabnimo haddii ilaahay raalli ka noqdo aad ayaad u mahadsan tihiin.